runtii waxaan rabaa inaan ka raaligeliyo dadweynaha Soomaaliyeed dal iyo dibad joogo oo isoo wacay oo tacsiidii qaarna ila hadlay qaarna is haleeli wayna runtii waa mahadsantihiin. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المولى تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. geeridu waa xaq runtii ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga hanoo qaboojiyo. anigu waxaan maqli jiray mar waliba ama shaashaadka ka daawan jirnay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun oo lagu soo dejinayo maamo Soomaaliyeed, lagu soo dejinayo aabo Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed, gabar Soomaaliyeed. runtii waan ka naxi jiray, laakiin naxida hadda aan naxay iyo xanuunka hadda i gaaray ima gaari jirin. markaas waxaan ogaaday murugta intay adig ka maqan tahay guri kale ku jirta. hooyadii markay dhimatay xanuunsatay, isbitaal ay gashay, ICU aan la galay, markaas wax badan aan ogaaday runtii in xanuuno badan ay jiraan, dad badan ay xanuunsan yihiin. sida hadda aan qalbigii u gubanayo dad kamid ah, dad badan saas hadda u gubanayo oo ma u siin gubtay, horeba u sii gubtay. marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu noo boogadhay anaka dhanba, qof kasta waalidkiisa ka dhintay, khaasatan hooyo waa xanuun runtii aan laga soo kabsanaynin. wuxuu yidhi shaacirkii: famaa kaana qaysun hulku waaxidin aw halka waaxidin walakinahu bunyaanu qowmin tahaddama. qays ibn caasim ayuu shicir ka tiriyay. shaacir wuxuu yidhi qays dhimashadiisii hal qof uu halaagsama ma ahayn, qoom dhan meel ay degayeen ama guryahooda ay wada dumeen oo kale u ahaa. runtii hooyo macaan Ruqayya Qaadi Cabdi, hooyo dadka dhan hooyo u ah bay ahayd. meelo badan baa runtii masjidkeeda naga soo gaaray. waxyaabaha isabarsiiyey waxaa ka mid ah tacsiyadii iyo meeshii isugu imaaday iyo jamacii. markaan arkay annakiya waxaa noqonay inaan dadka sabarsiino, iska raali noqdo, sabr aan dhahno, waayo annaka xanuunkeedii ayaan la nooleen. runtii culays badanaa saarnaa. markay dhimatay ilaahay qaboojiina waan u duceynay, ilaah baan ugu mahadcelinay subxaanahu wa tacaala, waana ku qanacnay. marka dadkii garanayay baa la qaban waayey. hataa duhurkii lagu tukaday ahayd salaada si jamaaco badan loo helo. dee jamaacadaad raadinaysid duhurkii in masaajidka jaamaca lagu tukadaan qorshaani go-aan ka gaaray. laakiin dee maxaaba ku tukanaya duhur see hogeynay masaajidka horta. gurigii in la buux dhaafiyey oo jidadkii ay xirmeen oo masaajidkii u buuxsamay iyo ilaa qabrigii waxa weeyaan dadka usii socdaan. kuleel daranna wuu jiray. markaasaa layidhi haddii jamacale la rabay jamaacadii wayba joogtahay waa lagu tukada hooyo. sidii aan salaadii alxamdulilah ku tukanay. ilaahay tabaaraka wa tacaala ha u naxariisto. qof aada u qiimo badan, aada u sharaf badan, aad iyo aad u wanaagsan. wanaageedii markay dhimatay kadib la arkay ayuu ahaa, ayay ahayd. runtii waxaan rabaa inaan ka raaligeliyo dadweynaha Soomaaliyeed dal iyo dibad joogo oo isoo wacay oo tacsiidii qaarna ila hadlay qaarna is haleeli wayna runtii waa mahadsantihiin. allah idin barakeeyo. mashquulka nagu batay, dadkii baa aad u batay, tacsiidiyaa badatay. Soomaalidii culimadii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, yani qofan isoo tacsiyeyn oo Soomaali oo aan garanayo maba jiraan dhihi karaa. intaan garanayno ciidaasi ka badan. telefoonka iga buuxsamay, ummadii meel kasta iga soo wacayaan. qaar hooyo garanay, qaar waxa weeyaan qaraabo dhow ay ahaayeen. adigu waa la isku wareer runtii. marka intaan ka qaban waayay tacsiidina waa idin ka qabaa.
ilaahay tabaaraka wa tacaala ha idin barakeeyo sidaad ila qaybsateen xanuunkayga iyo waxa weeye murugta idinkan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin culeysidin allah idinka qaado waana mahadsantihiin qofkan ka qaban waayena waxaan si cod dheer iyo cod gaaban aan ku leeyahay inaan ka cudur daaranayo waa dareemi kartiin iftiinkii adduunka haddii adduunka dhan mugdi kugu noqdo qol mugdiyan lagu jiri karinba haddii adduunka dhan mugdi noqdo waa dareemi kartiin qofku waxa weeyaan dad badanna way cudur daareen haddana insha allahu tacaala cudurdaarkaasna ay sii wadeen rajayna tacsiidin wili way socotaay oo tacsiidii maalinba qofaa maqlayo cusub oo qof cusub baa isoo waco ilaahay tabaaraka wa tacaala ayadana ha u naxariisto annakana insha allahu tacaala qulubtana allah noo qaboojiyo وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته